saacadu waxa ay dhaaftay kowdii habeenimo magaalada Muqdisho caawa waxa ka socda dagaal markaa u dhaxeeya sida wararka qaar ay sheegayaan ciidamada dawladda iyo kuwa taabacsan musharaxiinta mucaaradka ee maalmihii u dambeeyay ku baaqay in magaalada Muqdisho lagu qabto banaanbax markii saacadu ay ahayd baarakowdii iyo daqiiqado ayay mar qura magaalada Muqdisho waxa isbedelay jawigeeda waxaana la maqlayay rasaas markaa laba dhinac is weedarsanayaan walow ay markaa warfidiyeenku ay ku adag tahay in goobta dagaalka uu ka socdo ay gaarto wali waxaad maqlaysaan rasaas teel ah oo ka dhacaysa markaa meel aan sida ugu fogeen daljirka Dahsoon oo lagu madalsanaa in lagu qabto banaanbax ay hore u marniyeen midowga musharaxiinta wararkaasi qaar oo soo baxay waxa ay sheegayaan in ciidamada markaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa taabacsan midowga musharaxiinta oo fiidkii hore caawa magaalada Muqdisho laftirkooda saansaantooda laga dareemayay in magaalada Muqdisho markaasi ay dadka qaar muujinayeen cabsiyo kala duwan oo markaa ay ka qabaan in isku dhac uu yimaado u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa taabacsan midowga musharaxiinta hadda wali waxa socda rasaas teel ah oo waxa la maqlayaa rasaasta teelka ah ee socota aan laftirkii waa sitaagal marka wararkaasi iyo waxyaabihii ka soo baxa dib ayaan idin kala soo wadaagi doonaa maxamed Ismaan Daahiye Somali Cable TV Muqdisho